Assalaamu calaykum saaxiibayaal, halkani waa Caasim Media. Ku soo dhawaada qaybtii 8aad ee qisadii Hodan iyo Haaruun. isbuuc kadib xafladii waxay Hodan ka qayb galaysay nin iska leh shirkad ganacsi oo xaflad aroos qabay. iyadana waxaa lagu marti qaaday xafladaasi aroos. waxay ahayd galab waxayna dadka ku caweynayeen hool aad u weyn oo qof waliba wuxuu la taagnaa qof ay isgaranayaan. Haaruun isagana waxa uu ka mid ahaa dadka lagu casuumay xafladda arooska. Hodan indhaheedu waxay qabteen nin u soo socda dhankeeda oo fiirinaya. waaba ninkii xafladii hore joogay oo gabadha kale ku qaldayay. Hodan dhinacyada ayay fiirisay oo waxay istiri talowma dhinacaaga ayuu fiirinayaa, balse waxay xaqiiqsatay inuu dhankeeda u soo socdo. Haaruun oo dhankeeda u soo socday ayaa niyadda iska weydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin sidee bay ilaa iyo heerkan iskugu ekaan karaan. waa isku dhirir, waa isku cod, waxay leedahay indhaheeda iyo muuqaalkeeda oo kale. maxaan u dareemayaa inay Hodan i hortaagan tahay? maxaase u rumaysan la ahay in ay gabadhaani Hodan ahayn? maxay tahay sababta aan dhankeeda ugu socdo? maxaanse ku dhihi doonaa? wuxuu aayar u soo socdaba wuxuu soo hor istaagay Hodan asaga oo aan ka jeesanaynin wejigeeda mar qura. iyada ayaa ku tiri haye iska waran. Haaruun waan fiicanahay, sidee tahay adiga? Hodan waan fiicanahay. Haaruun ma i garanaysaa? Hodan ayaa ku tiri soo ma tihid ninkii maalin dhaweyd igu qaldayay gabadha kale? Haaruun haa waa aniga, barasho wanaagsan, magacaygu waa Haaruun. Hodan anna magacaygu waa Nuura, barasho la mid ah. Haaruun wuxuu isdhahay fiicnaan lahayda inay dhahdo magacaygu waa Hodan. xafladii arooska markii ay dhammaatay oo ay 3 saac habeenimo ay tahay, Hodan iyo Haaruun waxay u soo baxeen bannaanka. waxa uuna ku yiri aniga ayaa guriga ku geynayo, waayo iyadu gaari ma aysan wadanin. Haaruun ayaa geeyay gurigeeda, balse inta aysan gaariga ka degin ayuu ku dhahay ma kula tahay inaad meel igu aragtay? ma laga yaabaa inaad i garanayso balse aadan i xasuusanin? Hodan intay walwashay ayay isweydiisay oo shakigayga run buu ahaa. ninkani meel in aan ku arkay waan u malaynayaa, laakiin ma xasuusto. Hodan ayaa weydiisay oo adiga ma i garanaysaa? Haaruun baa ku yiri waa laga yaabaa inaan ku garanayo ayaan u malaynayaa. Hodan waxay ku tiri meel aan shirka ahayn kuguma arkin, waxaana laga yaabaa inaad qof kale igu qaldayso. Haaruun wuxuu ogaaday in ay qalad tahay in gabar uusan aqoon u lahayn uu ku qaldo xaaskiisa Hodan, dadkana ay isku ekaan karaan. Hodan oo maskaxdeeda ku fikirayso halkee baad ku aragtay ninkani iyo ma laga yaabaa inuu ku yaqaano ayaa ka degtay gaariga oo gashay gurigeeda. Hodan waxa ay degan tahay kaligeed oo adeerkii ay la joogtay wuxuu u guuray dibadda isaga iyo qoyskiisa maadaama ay halkaasi deganaayeen markii horeba. Hodanna waxay ahayd qof ganacsi leh oo waxay ku qasban tahay in ay kaligeed ijaarato villa yar. Haaruun wuxuu aaday gurigiisa oo waxa uu rumay weysay riyadiisii ahayd xaaskaagii baa dib kuugu soo laaban doonto, laakiin weli ma rajo dhigin. Haaruun ayaa galab sii maray jidka hormara shirkadda Hodan, wuxuuna sugay Hodan si uu u geeyo gurigeeda, wuxuuna ku qanciyay in ay dhib ku ahayn sii dhaweynteeda. Haaruun markuu Hodan geeyay gurigeeda ayuu weydiiyey weli ma soo xasuusanin miyaa meesha aad igu aragtay? Hodan ayaa iyada oo yaaban isweydiisay sababta uu ninkani u su'aalo su'aashani iyo meesha ay xasuusan la'dahay ee ay ku aragtay asaga. waxayna isweydiisay inuu garanayo inay yaraanteedii oo dhanba xasuusanin iyo in kale. Hodan oo maskaxdeedu buuqsan tahay ayaa ku tiri xasuus uma baahno midaasi, waayo kuma garanayo. waxayna si degdeg ah ugu degtay gaariga isla markii uu gurigeeda hor keenay. Hodan markay gashay guriga oo ay sii xiranayso albaabka ayaa waxaa ka daba yimid Haaruun oo qabtay albaabka intuusan xirmin. waxa uuna gacantiisa ku qabtay gacanta Hodan, wuxuuna ku yiri isaga oo baryaya ha iga xanaaqin, baliis waan ku baryayaa isoo xasuuso. waxaan u malaynayaa inay xasuusta ka tagtay, balse aad tahay Hodan, baliis isoo xasuuso oo isku day inaad isoo xasuusato. Hodan ayaa dharbaaxo intay ku dhufatay Haaruun ku tiri war isiidaa, kuma aqaanee maxaa markasta ii leedahay isoo xasuuso. war weligee hadda ka hor kulama hadal oo kuma arag ee iiga bax guriga. Haaruun ayaa xaqiiqsaday in gabadhaani aysan xasuusta ka maqnayn. wuxuu ku fikirayna ay been ahaayeen oo aysan ahayn xaaskiisa Hodan, wuxuuna u soo baxay bannaanka isaga oo ilmeynaya. Haaruun ma hubin in gabadhaani 100% ay tahay Hodan, balse qalbigiisa ayaa u sheegayay inuusan qaldanayn
ee uu sidaasi sameeyo. Hodan habeenka oo dhan waxay ka fikiraysay sababta ay u soo xasuusan la'dahay ninkani iyo qofka uu yahay, iyo sababta uu ugu maleynayo in ay tahay gabar kale oo Hodan la yiraahdo. Haruun oo murug ku dhamaatay ayaa aaday gurigiisa kana quustay inuu mar dambe la hadlo Hodan. Hodan ayaa iyadana waxay habeenkii oo dhan ku fikiraysay sababta uu Haruun u leeyahay isoo xasuuso iyada oo aanan aqoon u lahayn. Haruun wuxuu ku laabtay xaaladihii uu ku sugnaa sanadihii hore ee uu Hodan weysanaa, wuxuuna waayay halkii rajo ee uu niyadda ku dhisanayay, taasoo ahayd in uu maalin maalmaha ka mid ah uu heli doono Hodan. halkaa ha inoo joogto qaybtii 8aad ee qisada Hodan iyo Haruun. daawade haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe channelka tan intaan kulmayno qaybta 9aad ee qisada. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.